qaad ka nahay Ilhaan Cumar in ay Mareykanka iyadoo qaxoontiya oo cabanaysa ay ku gashay Balambal iyo Boohoof Laascaanood waxay ka ahayd dagaal ooge wana gabadhii dabka hurisay ciidanka boolisku waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan dambiilayaal kilibka duubay shakhs reer Somaliland ninka Ilhaan Cumar siyaasad la wadaaga ee tala ku darsada waa nin caruur bariis la cunay marka Somaliland ka hadlays wana soo weysiisata bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland ee isku duuban ee han ingloofka uliya diirkeeda waxaan si toos ah ula hadlayaa cod dheer iyo cod gaaban baan kula hadlayaa Ilhaan Cumar oo ah gabadh ku nool dalka Mareykanka oo sheegata magaca Soomaali oo ka hadashay madax banaanida jiritaanka iyo qadiyada Jamhuuriyadda Somaliland marka koobaad intaanad wadan ka hadal umadnaanad wuxuu sheegin waxa qurux badan inaad ogaatid halkaad ka timid iyo halkaad joogtid sidaad u timid waxaan qaad ka nahay Ilhaan Cumar in ay Mareykanka iyadoo qaxoontiya oo cabanaysa ay ku gashay Balambal iyo Boohoof lagu register gareeyay qaxoonti ahaan waxana nasiib darro ah in ay maanta Somaliland wax ka sheegto Ilhaan Cumar han qabiil male han qaranna male han siyaasadeedna male Laascaanood waxay ka ahayd dagaal ooge wana gabadhii dabka hurisay laakiin waxaan la yaabanahay ninka Ilhaan Cumar tala ku darsaday ee siyaasad la wadaagay ninka Ilhaan Cumar siyaasad la wadaaga ee tala ku darsada waa nin caruur bariis la cunay intaas waxaan ku darayaa waxa ku nasiib darro ah adigoo qaxoontiya inaad qaxoontinimadaada soo dhaaftid oo dal madax bannaan qarannimadiisa iyo goonistaagiisu tahay mid muqaddasa oo aan cidna waxba laga weydiinayn inuu carabku kaaga dhaco markaad Somaliland ka hadlaysid wana soo weysiisata markaad Somaliland ka hadlaysid waa in aad noqotaa qof daahira markaad Somaliland ka hadli kartaa waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leeyahay oo intaasi aan ku darayaa waxaan shacabka Somaliland ka codsanayaa yar iyo weyn hooyo iyo aabe in ay ciidanka noocyadooda kala duwan oo dhan ay garab siiyaan falal baa inagu soo badanaya inooga imanaya qaxoontiyada ka dhanka dalka Soomaaliya ciidanka boolisku waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan dambiilayaal kilibka duubay shakhs reer Somaliland waana ugu hambalyeynayna garabkoogana waan taagannahay hiil iyo hooba waan la garab taagannahay ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay ciidankiina garab istaaga markhaatina ka ahaada wax kasta oo ay ku guuleystaan khayr baan idin rajaynayaa dhammaan shacabka Somaliland